madaxweynaha dalka Nigeria Maxamuud Buhari ayaa si rasmi ah uga gadoomay warqadaha aqoonsiga safiirnimo ee safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya dalkaasi Ambassador Jamal Maxamed Barrow. munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta madaxtooyada dalkaasi Nigeria ayaa waxaa si heer sare loogu soo dhaweeyay safiirka dowladda Soomaaliya u magacowday dalka Nigeria Jamal Maxamed Barrow, iyadoo ciidamada qaranka wadanka Nigeria uu salaan qaas ah ay siiyeen safiirka. intaasi kadib madaxweynaha dalka Nigeria Maxamuud Buhari ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkaasi Nigeria Ambassador Jamal Maxamed Barrow. dalalka Soomaaliya iyo Nigeria ayaa xiriir qoto dheer hore uga lahaa, waxaana burburkii dalka kadib uu ahaa mid gaabis ku yimid maadaama dowladii dhexe dalka ay meesha ka baxday. dowladda Soomaaliya ayaa dib u soo celisay xiriirka kala dhaxeeya dowladda Nigeria oo ka mid ah wadamada ugu horeeya qaaradda Afrika, waxaana Ambassador Jamal Maxamed Barrow horyaala howlo badan oo ay ka mid yihiin kor u qaadista xiriirka labada dowladood iyo soo nooleynta iskaashiga dhaqan dhaqaale ee labada wadan ka dhaxeeya. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, warbaahinta qaranka, Muqdisho.